walaalayaal soo dhaweyntan diiran ee quruxda badan eedna soo dhaweyseen kalgacaylka iyo wada dhalashada iyo maaragtay midnimada iyo walaalnimadu ay ku dheehan tahay aad baan idinku mahadinaynaa ilaahay haydin laban nabadda laga hadlaya iyo farxadda iyo horumarkaas haddii aan dib ugu noqdo socdaalkanagu qasadka in badan socdaal aan niyada ku soo haynay sanadkan buu ahaa saddex qodob oo Soomaaliland ku gaara iyo qodobo dalalka kale iriir Soomaale iyo ama Oromo dir waa Oromo idhawn iriir Soomaale waan iska soo badinhayaa ama ilmo Soomaali oo dhan buu gaar ku yahay saddexda qodob ee Soomaaliland aan socdaalkan uu kooban yahay mid waxa weeyaan Soomaaliland waa juz aan qaybsamaynin go'aanka nagu waa kaas hiili hooba waan ku garab taaganahay waxa nagu soo duulduulaysa saddex arimood dhinaca maaragtay koonfurta Soomaaliland gobolada xiga oo waa la kala goynayaa oo gaar baa loo goyn leeyahay waqooyiga gobolada xiga oo qaar hadaluna ma dadku ma sameynina hal goosti iyo walaac ka socdo iyo Soomaaliland beesha dhexe oo iyada caynteedu istijiid iyo muran maaragtay xadki ka baxay oo maaragtay aan laga fiirsanin uu ka socdo saddexda arimood iyo tu afraad oo ah ra'iisul wasaaraha walaalkiina arsabaydin jooga walaalkiina hadalla uu yidhi oo maaragtay la isla dhaxqaadayo dadku si kala ay u fasirteen waa wiilkiini waa walaalkiin beeraha iyo booska iyo dhirta daaqsintaba waa la kala leeyahay iyo biyaha iyo maaragtay jidadkaba laakiin labada walaalaha abadda laba way kala leeyihiin dalkan idinka iskale idinka u taliya wax xoog iyo siyaasad iyo kala qaybin lagu hunguriyeynaya ma jira taas Soomaaliland oo biirsiba lala sheekaystay oo waxaas waa been futuud ku tiri ku teeniya Soomaaliland dad kamida oo intay arsaba tageen hoteelleynta iska tageen mobilada ku duuduubay Soomaaliland kala gogoynto inay Soomaaliya Itoobiya ay la hayso dawladdaasi ay og tahay dadka qaarkii u qaadanna taana waxba kama jire xilli ay xisbigii iyo dawladda shirar ku jirto dad iska dhunta hoteelleynta tageen iska hadlay oo iska maaragtay dhaqana weeyaan taana waan idinka bogsinaynaa Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhanba waxaan la garab taaganahay hiil iyo hoo wixii cadawgeedii waa noo cadawgooda wixii kala qaybin wuu qaybsamaya geeska Afrika oo dhan inaan isku daraaban damcaan inta isaysa wax kala goyn karaan ma jiro taasi waa go'aan annaga iyo dawladdanadii waxa kale dawladdaas aan u geynaynaa arrimaha walaaluhu isku leeyihiin in leydhka laydii soo geliyo ay Itoobiya hodan ku tahay in jidadka meelaha u dardaran laydin gaarsiiyo in biyaha haddii kuwii namba biyo bad awood kor joogtaana laydinka yar horeeyo tiknoolajiyada biyo ku filan baadi iyo beledba laydin sameeyo arrimahaana ra'iisul wasaaraha waan kula talinaynaa iyo dhakhtarro waaweyn oo caafimaadka walaalayaal dekada aad leedihiin baan wada leenahay oon maaragtay ka shaqaysanaynaa garabkaan isqabsanaynaa taana ka bixiya arintaas waanu garab taagana xadkeenuna waa xadkii Afrika ay wada samaysatay xadkaas baan Soomaaliland ku garab taaganahay wax taaban karaana ma jiro waa